مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. intaan kelmadayda bilaabin walaalaha Soomaaliyeed ee halkan jooga 17 degmo u badan waxaan jeclaan lahaa horta quraanka marka la akhriyo waa la dhageysta hadalka waa la joojiyaa waxaynu nahay dad muslim kitaabka Ilaahay aan ixtiraamna Ilaahay hadalkiisa wacdigu intuu socdana wax yar dhagaha siiya hadalka iyo sheekada gaarka ah inaad deysaan baan jeclaa aayadihii aan akhriyay waxay ina farayaan waxay adduunyadeena iyo aakhiradeennaba ku hagaagi lahayd ilaahayna uu garab inoogu noqon lahaa waa ilaahay inaynu u hoggaansanaano wuxuu ina farayna yeelo wuxuu inaga reebayna ka tag innagoo muslim oo toosanna dhimashadu inay inoo timaado kadib aayaduhu waxay amreen midnimo kala tagana way reebeen kadib waxay ka hadleen xasuusin taariikhdu ilaan dadkay bartaa wixii la soo maray xaaladii islaamnimada intaan la haysanin lagu jiray ee isdilka iyo dhiigdaalinta iyo cadaawada ahayd iyo islaamkeennu markuu yimid walaalnimadii iyo nabadgelyadii iyo khayrkii la helay asagoo islaamka ka hor god naara laga laadilaaday islaamnimadii baa noloshii soo celisay amnigii soo celisay midnimadii soo celisay weli waad hadlaysaan aad baan uga xumahay weliba 17 degmo codsi baan caawa u jeedin doonaa marka dhagaha ay fureen waxyaan aamuseen iyo sharaftooda iyo meeqaanka iyo wasanka waddanka ay ku leeyihiin in qof walba hadda si fiican buu u garan sababtoo ah wax 30 sano ku dhow oo fawda iyo dawlad la'aan ayaan ku soo jirnay marka waxaa laga yaabaa markii nabadda aan haysanay oo weligeen baxolaad iyo balaayid iyo waxaan aan aragnay aynaan arag inaynaan aad u garaneen ciidamadu qiimahay leeyihiin laakiin maanta markaan 30 sano dagaal qabiil iyo dagaal hogaamiye kooxeed iyo dagaal argagixiso iyo dagaal shaydaan aan ku jirnay ciidamadu waxay galaan iyo waxay gudaanba waa ka dharagsan waa nolosheenni waa noloshii qaranka waa noloshii calanka mar hadday sidaas tahay waa waajib diini ah wadani ah inaynu garab istaagno naf iyo maal waxaan ayna inaan isku barbartaagno booraankooda aan dhiso dhowr qolaan midba kelmad yar ujeedi ciidamada waxaan leeyahay insha allah waa la taageeri shacabka Soomaaliyeedna waxbuu idinla qaban iyo dowladdiisuba waxaan rabaa laakiin inaan idiin sheego arrintan iyo xaaladda maanta aynu ku nool nahay haddaad gaajaysan tihiin oo idaan waxba haysaninna dhinta oo dagaalama haddii aad waxeshaanna waa sida aan jecelnahay insha allah waad helaysaan
الصومالية وفنانين تهيئا أنا ما هنقلنا درجة ودنيمو صوماليا waxay soo martay marxalad dheer waxay lumisay qarannimadeedii waxay samaysay dagaal aan ku soo duulin ayadoo ay sharafteeda qaatay dib ayay waxay halkan ugu gashay inay dib u soo ceshato dowladnimadeeda qarannimadeeda ciidamadeeda iyo madax bannaanideeda qaybta maanta aan u fadhino waan uga mahadcelinahay ra'iisul wasaare حسن علي قيرين رئيس وزراء جمهورية فدرالية الصومالية إنه برنامج كان ما أنت يسوع بعده وقيت الوجود بهم سنة وايو أمة كل كون ضيعينها هاي أمة الكون ضيعينها هاي أمة بدر ضيعانتها هاي دولة اللي مش عن كلام إلا هاي إنتاز دبولان أو هلان دافع دول بد إلى كاب كان العدو جودا وعملوا سبيلا جاكي فرنك عدواني وعضبك الحوي واحلموا لك الألوان ومع السكين وعلى هاديات ومن معلوماتنا دولة جمهورية الفدرالية الصومالية وجامعة مدحوينها اللي بستين توطيه اللي دفاع قرن الصوماليات سيدا درتين حتى أنها يقبلها الصوماليات مدن مدحوينه waxaan kugu garab istaagaynaa libisashada aad libisatay tuutaha ciidanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed gudoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaare ku-xigeenka labada gole iyo sidoo kale golaha wasiirada saraakiisha ciidamada bahda saxaafadda cilmaaudiinka baambeyda haweenka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed 17 degme ee gobolka banaadir oo caawa halkan si wanaagsan u jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudayahanteeda salaan kadib caawa waxaa sharaf weynii ah inaan ka qayb galo munaasabadan qadarinta leh ee loo wada dhan yahay ujeedadeeduna tahay gargaarinta iyo taakulaynta haliyeyga soomaaliyeed inta aan hadalka sii wadin waxaan rabaa halkan inaan madaxweyne haddii aad ii golaatin aan halkan ka sheego maadaama caawa ay tahay taageerada ciidanka qaranka soomaaliyeed 17 degmo waxay hadda i soo gaarsiiyeen inay ku deeqeen lacag gaarayso $8,500 waxaan sidoo kale rabaa mudan madaxweyne inaan kula wadaago waxaa sharaf iyo karaamo gooniya ii ah maanta markay ahayd 3 galabnimo in aan ka qayb galay furitaanka qayb ka mid ah isbitaalka xoogga soomaaliyeed oo ay ka qayb qaateen dayactirkiisa dowladda talyaaniga gaar ahaan qaybteeda militariga iyo hay-ado NGO ee dalka talyaaniga ku sugan ayaa ka qayb qaateen dhisidda qayb ka mid ah isbitaalka xoogga sidaa darteed mudane madaxweyne waxaa sharaf ii ah inaan maanta annagana ka ballan qaadnay gobolka banaadir ahaan maadaama dadka laga xusay meesha aysan soomaali ku jirin in xusitaanka labaad iyo shaqada labaad gobolka banaadir uu qayb dhaqaale ka geysanayo dhisidda isbitaalka xoogga soomaaliya insha allah mudanayaasha labada gole culamaauddiinka ciidamada qaranka sida ururada bulshada bahda saxaafadda fanaaniinta dhammaan marti sharafta waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyagana laadagunta xiran waa si macluumaad furo hadal badan oo soo istaagin waxaan kaliya xuseeyaa maanta oo ah maalin runtii aad u qiimo badan oo ah maalintii ciidamada booliisku waa hooyadii aabihii ciidamada qaranka ciidamada militariga iyo dhammaan ciidamada qarankiisa waxay ka soo askumeen ciidanka booliiska waxaan runtii aad ugu faraxsanahay taliyaygii hore oo aabbayaashii soo maray ciidanka alkasiday taariikhda ku lahaa caawin laga soo qayb galay jenaraal jaamac maxamed khaalid oo runtii taariikh weyn ku leh sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladdan oo runtii
muujisay taageerada dhinaca ciidamada aan rajaynaynana muraalka iyo ciidamada sidii ay haddaba ballan qaaday horan u soo aragnay in bil walba ciidanka mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa ay si joogtaa u helaan taas oo runtii ahayd wax aan horay loo heli jirin ama go'i jiray taasoo ciidanka muraalkiisii kor u qaaday mudane madaxweyne iyo mudane ra-iisul wasaare ciidamada qaranku waxay u dhaarteen ummadooda inay cadowga gudaha iyo kuwa dibaddaba labadaba ay ka difaacaan xuquuq kastoo ay helaan iyo xanaano kastoo ay helaan ciidanku wuxuu lahaa taariikh dheer wuxuu lahaa xafiiska xabsiinta aqoontooda daawacooda intaba daryeeli jiray waxaa muuqda ifafaale fiican oo ka muuqda oo tilmaamaya daryeelidda ciidanka waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed waxay maanta u istaagtay inay ciidanka la garab istaagto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in cadowga ummadda soomaaliyeed uu baaboo ciidankuna u gulaysto shacabka soomaaliyeedna ay nabad ku waaraan anugu hadal badan oo soo istaagin waxaan leeyahay gogashaan martida waxaan fidinay in munaasabadana kaga faa'iidsanno meeshaana waa meeshii lagu soo askumi jiray xaquliyada dowladda iyo tilmaamaha dowladda waana mahadsantihin mudane madaxweyne ra-iisul wasaare gudoomiyaha golaha aqalka sare golaha wasiirada golaha shacabka gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolkaas baanbeyda booliiska ciidamada qalabka sida kaataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaan fadhida martida sharafta halkaan fadhida anninka caawa wax hadalana uma banaanaba waxaa keliya mudane madaxweyne ra-iisul wasaare hortiina ku ballanqaadina inaanu dalka u dhiman doono horay ugu soo dhimayn ereyga keliya loo bilaabo waxa weeyaan inaanu ballanqaadkaas haddaanu nahay ciidamada qalabka sida ma ballanqaada inaan dalka ku dhimano warka u qaada ma ballanqaada بسم الله الرحمن الرحيم. kala socda labada aqal wasiir wasaare ku-xigeenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid waa fahamsanahay caawa inay tahay habeen farxad leh waxaan u istaagay inaan mar dhow ku soo dhaweeyo madaxweynaha laakiin waxaan idinka codsanayaa horta inaan isdhegaysano haddii ilaahay yidhaahdo ugu horrayntii waxaa ah farxad caawa in ummadda Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen inay isku dhaarsadaan inay danahooda iyagu u soo jeestaan waxaa sharaf weyn ah in dadka Soomaaliyeed ay soo gaareen xilligii dib loo oogi lahaa qarannimada Soomaaliyeed
waxaa sharaf weyna inaan qirannay sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay inaan innagu isku filnaano. waxaa hadlay culimmadii, waxaa hadlay dumarkii, waxaa hadlay ciidankii, waxaa hadlay madaxdii dalka. waxaa dhiman qaar kale oo nala hadli doona haddii ilaahay yidhaahdo, laakiin waxaa muuqataa yididiiladii lagu yegleeli lahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinayaa horta wiilashii iyo gabdhihii ka soo shaqeeyey arrinkan oo xafladdan soo maamuusay. waxaa kaloo u mahad celinayaa gobolka Banaadir oo runtii aad noo garab taagan. haddii qof Soomaaliyeed oo caawana daawanaya ay shaki uga jirto meesha ay Soomaaliya u socoto, haddii ay shaki uga jirto waxa aan ka samaysanna, hadduu ka shakisan yahay cidda aan caawa ayaad heshay jawaabtaada. محمد عبد الله فرماج برايم مستر کا سوماليا سراكيش عندما قلب كسيدا دغموين كغور كبنادر مدحنا كره فديدا ميشن دمانتين وايد سلاميه انت كده وعن فيليا برايم مستر كو أمام بدن وأنا لهي دويستاري وعن شيء يا ضدك الصومالي شخص قف صوماليا أيانا هاي ووفر بدن وصوماليا ووطنينا أيان لبدا إنت أقول كان كتبه هل يريدان عيدك الصومالي كورني تاريخ باني دين شيء دقال كي تضواتن يتضواتي إذا مدى كركي قبل دهر gacanta ku dhigeen mangistu wuxuu shiriyay dargigiisa wuxuu yiri ciidamada qabri dahar qabsaday way naga tayo fiican yihiin marka la fiiriyo laba arrimood mid waxa weeye way naga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way naga qalab fiican haddii uu dagaalku 6 bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in Addis Ababa laynoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo waxa kaliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirku yiri ciidamo cirna dhulma qabsada waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeenu waa kuwii waagaa jiray waa kuwii Afrika meel cad ka taagnaa weeye waxaan aad uga xumahay 27 sano 26 sano ayna soo dhaafay ciidankeenii oo jooga inaynu u yeeranno ciidamadii ay tababari jireen kuwii ay tababari jireen inaynu u yeeranno oo nidhaahno na badbaadiya ma u baahin baan qabaa anugu ciidankeenna oo aynu nolol siino ayaa dalkooda difaaci kara ma u baahin ciidan ajnabiya maanta waxaan ku faraxsanahay inay helayaan in la siinayo mushaharkooda inayna ahayn maanta kuwa ciidamo kale istaba taagan inaynu noqonayn haddii aynu noqonno dad ciidankooda gacan siiya oo maanta halka waxa farxad ah qoorka halkan ka taagan ee inteennan oo dhamme halka aynu isugu nimid waxa weeye waa taageerada ciidamadeena waa arrin lagu faano oo aad iyo aad loogu faano waxaan filayaa hadal badan meeshan ma yaalo toon tawfiiq lahayn naagaan tashiil lahayn iyo madaxaan turis lahayn midna laguma tafato feelanay
waxaan leeyahay soomaali jidkii bay ku taagan tahay jidkii ay ku midoobi lahayd jidkii ay ku nabdoobi lahayd jidkii ay horumar iyo barwaaqo ku gaari lahayd waa haddii la isku tiirsanaado oo hal la noqdo waxaan halkan erey kale ka soo jeedinaya qabyaaladu waa cadow kala bixi buriya biyo kala baro bahdaadiyo bahalaan ku daynay waxa weeye qabyaaladu waa bahal inaynu garanno qoomiyadda soomaaliyeed geeska afrika waa dad laga yaqaan oo taariikhdooda ay halkaa taal dib baynu u dhacnay waan ka baxaynaa haddaynu isku duubnaano waxaan leeyahay soomaaliya ha midowdo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن علي خيره رئيس الوزراء كحيين كما هتقولين ولها وزيرة لبض الدولة البرلمان تعالى تسري ولها شقة كنا سراكين شقيمها إقايها لأنقرنا يعني وحا أيهين عيدمة الصومالية ورد البشرة بعد الصحافة جريدة ولد أوقع لكن قبل أي كانت جريدة ضبوش كتوه تضبي تبنت توجه زي مدور كبنادر مدوريها بارية دمن تيار دور كبنادر دمان بعد أن جعلها يقولوا كهواء كقرن الصومالية مدورية بطول مدوريها وتعي وحاسيك يا سلام يا الموتي كنقيمها مدانة بانور بارود برهان من قارئ وقيمة بدن أو وضري أول إلهي واسكالي هدانا أول أمير شباب من الله وقبضلنا لكن أول إلهي وحان شوي السيالي وكلية وحان جلبان قلمي وحان قدش المدى عبد العزيز كوكوري وحكو برتي دولة العقل آني وحيقو برتي أني العقل آني تطبسا عندنا تيامة تكبح أنا وولي بسانو أسكرنين ليلة ما هنجي ciidanka Soomaaliyeed awoodiisana ku marayay ilaahay baa awood leh ma ku maraynin qabiilkayga kuma maraynin qof jeclaysi kuma maraynin awood gaar ah leeyahay ciidanka Soomaaliyeed macnaheedu ma aha in aan amaan gaar ah ku helo laakiin wallahi billahi tallahi magaca ilaahay baan ku dhaartay markaan arko qof ciidan ah berigii hore waa ku soo ordi jiray haddana shabaabka la biska soo qaatay ciidanka ma gargaranay qalbiga ay xanuunaan بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المصريين الوزراء وزارة الخارجية وراء وجهنا اللي الله وضع قلب رياش عيد في قلب قصيدة ما كنت رياش مناسبتها ورد البرشادة والراودية بعض صحافته بامبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذا إن ولما العليون هاي رياشة إلى كقلب السدف إيو ضبط كفدية نقالها يقلبها anigoo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida oo ku hadlaya magaca ciidanka waa idinka guddoomay waa idinkaga mahad celinaya taageerada aad taageersan tihiin ciidanka qalabka sida
aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan waxyar idinkaga sheego ciidanku waxay yihiin anigu ciidanka waxaan bartay 2010 iyo 2011 markii ay shabaabku haysteen xamar 75% aniguna aan ahaa ra'iisul wasaaraha oo ay maalin walba ugu soo weerarayeen madaxtooyada oo ay ciidamada leynayeen yaa waxaan ogaaday ciidanka aan haysano iyo ciidanka Soomaaliyeed geesinimadoodu waxay yihiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan fadhida iyo kuwa la daawanayaba inaan baro ciidanka Soomaaliyeed caawa waxay yihiin waxaan ka bilaabayaa oo aan la shaqeeyay General Bile oo halkan jooga markaan leeyahay ciidanka qalabka sidii waa isku wadaraya General Saacid waxa ka codsanay halkan inaad timaado oo markaas ahaa taliya ku-xigeenka waxaan rabaa inaan u yeero General Saacid iyo kulli ciidamadii ila shaqeeyay oo magaalada ka horeey halkan soo istaag kulligii ciidankii magaalada ka horeeyay shabaab 6 sano ka hor waxaan rabaa halkan inaad soo istaagtaan oo ay dadku idin arkaan maxaa yeelay magaalada arkaysaan hadda waxaa ku daatay dhiig badan dad badan yaa naftooda u huray waxaan doonayaa inaad ogaataan waxaad ku fadhidaan caawa inay tahay hilibka iyo dhiigga iyo maxaan ku idhahdaa halgamayaasha halkan taagan ciidamada halkan aad ka arkaysaan waxa weeye ciidan ku soo dagaalamay iyagoona haysan bulshaha iyagoona raashin haysan iyagoo markii dhaawacmaan aan la daaweynaynin iyagoo kii dhinta carruurtooda aan la daryeelin xaggee ka helaysaa ciidan noocaas oo kale ah adduunka xaggee ka helaysaa annagu haddaan nahay bini aadam khaasatan haddaan Soomaali nahay ma xasuusano shalay abaalna ma lihi caawa generaalada arkaysaan iyo korneelada arkaysaan iyo saraakiisha arkaysaan waa saraakiisha aad ku fadhidaan halkan caawa maxaa yeelay xaaladda hadda aad arkaysaan xaalada adagaa ka soo horreeyey oo aad iyo aad u dhib badan sidaas darteed waxaan leeyahay maanta oo ay bishu tahay 8 Julaayo 2017 waa maalin geli doonta taariikhda Soomaaliyeed baal dahab ka gelaysa maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed wadajirka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed مسؤوليتنا ملها دولة كلمة ملها دفاع ذلك ملها عندما كلمة ملها قفل بمواطنة بأسكاله دفاع قرب قفل بصوماليين يا لقطة الأولد ودي سوداني حتى دون إنسان إن أكون ولا تندل شرفه وحنا هو قفل وهكذا فديه من دونه إنه كل ولا ضل مقعد ومركو صفر أيوه بس بورتي يسقى أن ليبي والله حرمينا نقوم بجاري كرو انت عشان شرفه هذا قيسان نقوم بجاري كرو حين الآن دولة والبا يضل والبا انت عيد الكولية هاي يشرف بينك أو الاحترام أو يمقع لنا سيدا هذا حالته اي تهي وحنلاقي هاي وحن جونا 2010 maxaa yeelay shabaabka magaalada laga bixin lahayn haddaysan shacabka taageerin shabaab waxaan uga adkaanay oo aan magaalada uga horeynay taageeridin waxaan uga horeynay taageeridin aad siinaysaan ciidamada qalabka sida biyaha iyo caanaha iyo cuntada ka dan wadaan waxaan rabaa inaan halkan ku magacaabo ama aan ka sheego batuulo ilaa halkan loo timaado oo hogaaminaysay dumarka Soomaaliyeed oo daba socday
waxaad raadinaysaan dalkiina inuu sharaf lahaado macnaheedu waxay tahay inaan isku tashanno waxaa weeye inaan isku tashanno ciidanka amisom oo waaleyn ah oo halkan loogu yimid inayna difaacaan waxay nala joogaan muddo 10 sano ah waxaan idiin sheegayaa 10 sano dambe nalama joogayaan sidaas darteed waa u mahadcelinaynaa waa ku mahadsan yihiin abaal weyn waa uga haynaa laakiin waxaa loo baahan yahay si sharafkeena iyo karaamadeenna ay u soo noqoto waa inaan awood u lahaano inaan dhulkeenna cirkeenna iyo baddeenna aan gacanta ku hayno aan difaaci karno waxaana difaaci kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa difaaci kara ciidanka qalabka sidaa difaaci kara laakiin ciidanku keligiis ma difaaci kareen dal waxaa lagu difaacaa laba arrimood waxaa lagu difaacaa dhiig lagu bixiyo iyo dhaqaale lagu bixiyo dhiiggii waa bixiyeen waana bixinayaan kuwo badana waa qoranaynaa way bixin doonaan yaa dhaqaalaha bixinaya dhaqaalaha waxaa ka sugaynaa shisheeye dhaqaalaha annagaa hayna dhaqaalaha idinka haya jeebabkeena ugu weli jiraan ma ka soo bixinaa jeebabka walaalayaal dadka muqdisho jooga iyo dadka Soomaaliya jooga iyo dadka qurbaha jooga haddaad doonaysaan dal sharaf leh oo aanan idinku dhimin eraboorada oo aanan magac xun Soomaaliyaysan lahayn waxa weeye qof walba waa inuu qaybtiisa qaato haddii qofku naftiisa huray oo dhiiggiisa uu ku daaliyey waxaa loo baahan yahay idinku inaad ku kabtaan wixii dhaqaale ah haddaydan dhaqaalo bixin waxay la tahay inaad kabtaan inaad ku jirtaan xaaladda ah sharaf xumo iyo karaamo xumo inaad ku jirtaan waxaan idin leeyahay walaalayaal waa ognahay ciidanka Soomaaliyeed marxaladii soo maray waxaan soo joognay ciidanka Soomaaliyeed difaac kaliya maahe sida rag odayaal halkan uga sheegeen ciidanka Soomaaliyeed qayb ka soo qaateen la dagaalanka ama taageerada gurmadka abaaraha inay gacan siin jireen waxay qayb ka soo qaateen waan ognahay inta ay ka gudbeen inay dalka difaacaan oo ay ka gudbeen gargaarka dadkooda iyo shacabkooda ay u gudbeen inaan u tagno dowladaha dariska nala ah Kenya Tanzania iyo Uganda oo hadda nala jooga halkan markay dagaalameen inay dhex galeen oo ay peacekeeping ka noqdeen oo ay kala celiyeen meeshaan higsanayno hadda waa meeshaas wey meeshaan higsanayno ma aha shabaab iyo la dagaalankeeda shabaab waa ka adagnahay maxaa yeelay waxaad haysataan ciidan fiican oo aan sii kordhin doonno iyo shacab wanaagsan waxaan aaminsanahay sidaan uga adkaanay shabaab magaaladan uga adkaanay inaan muddo kooban oo 2 sano aan shabaab uga adkaan karno oo dalkaan ku soo celin karno nabadgelyo iyo siduu ahaan jiray walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxa weeye hadal waxba ma taro Soomaaliha hore wuxuu jiray hadal yar iyo hawl badan waxaa noo yaalla hawl aad iyo aad u culus annagu haddaan nahay dowladdii waxaan qaadanaynaa mas-uuliyaddii aad nagu soo doorateen oo ku soo doorateen xildhibaanada sharafta lagu soo doortay intii hadda aan joognay bilihii yarka aan joognay waxaan idiin sheegaynaa waxaan qabannay haddaad u aragtaan inaynan gacan ugu siin karin noo sheega iyo meeshaan ka siin karno ay ugu horeyso ka hortagga abaaraha xasilinta caasimadda bixinta mushaaharaadka aan joogto ka dhignay dardargelinta shaqadii wasaaradaha bilicda iyo maxaan ku rahdaa magaalada muqdisho oo aan bilaawno nadaafadii inaan bilaawnay la dagaalanka musuqmaasuqa inaan bilaawnay maxaan ku rahdaa diyaarinta iyo ansixinta hindisaha sharciyeedyada oo aan geenayno muddo dhow aan u geenayno baarlamaanka sidaad og tihiin guushii ugu dambaysay waxay ahayd in dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran oo dhan 120 aan xabsiyada ka soo geenayno muddo yar gudaheed waxaan qabanay shir weyne wada tashi ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta walaalayaal hawshu fara kama qodna
آدي وعنص لما تعالى لكن لأنتي وحنا طبعا كرنا وحنوبة هنا الشعب الصومالي وحنوبة هنا هي إن الأمن ينقلش قيسان مروا بوان رهنا وحنوبة هنا هي نقالة نقلش قيسان وعشورها بالحساب هذا اللباس سميسان وحنكبل القادنا إن الله تفرنا مروا بوان رهنا dowladaha kale oo runtii dadkeenu ay u qaxaan inaan qabsano oo aan helno dad badan oo qaxooto loo yimaado bacdama dadkeenu yahay dad khayraad badan dadkeenu ay yihiin dad firfircoon oo markii wax barta iyo dad badan oo qurbajoog oo wax soo baratay oo diyaar u ah inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maanta fursad ayaan haysanaa Soomaaliyeed waxaan ka doonaynaa inaad taageertaan ciidankeena inaad dhaqaale ku bixisaan hal ugu yaraad haddee noqoto hal $1 gabadhii hadda meeshaan joogtay oo ka hadlaysay khayr Allah siiyo iyadoo caruur ugu dambaystii waxaan rabaa inaan halkan uga yeero guddiga taakulaynta oo aan u magacaabay guddoomiye jenaraal maxamed jaamac qaali jenaraal iyo ku-xigeenkiisa Sheekh Nuur Baawar Burhan fadlan waxaan idiin sheegayaa labadan Soomaali waxaan u magacaabay inay yihiin dad xurmad iyo sharaf badan ku leh ummadda Soomaaliyeed hilal badanna hore uga soo qabtay oo aan aaminayno waxaan intaas ku darayaa dhaqaalahaas la aruuriyay gacantayda ku soo dhacaysa bacdama aan ahay taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed dhaqaalahaas aad ku tawarucdaan ciidamadii qalabka sida oo cadowga hor fadhiya dhaqaalahaas uu gaari haddii ilaahay ay ummadda Soomaaliyeed ay gartaan oo jeefkooda si fiican uga soo bixiyaan waxaa laga yaabaa iska daa mushaaharo iyo caafimaadkooda inaan guryo ugu dhisnaba ciidanka maanta fursadaan haysanno mar walba ma imaanayso haddii shalay aan laydin raadin oo aan laydin samaynin maxaan ku idhahda xafladdan oo kale oo madaxdii qaranka iyo ciidamadii qalabka sida iyo shacabkii Soomaaliyeed aysan idin hor imaanin aysan idin hor keenin waxay u baahan yihiin waxa weeye maanta waa idin hor taaganna mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad aan wada leenahay naga wada dhexaysa mas-uuliyad cid gaara ee u leedahay ma jiraan dalkan wuxuu u baahan yahay in dalkan loo nabadeeyo dalkan wuxuu u baahan yahay in cadowga laga celiyo haddaadan dhiig huri karin oo aadan naftaada ku hurin walaalayaal dhaqaalaha lagu kaalmeeyo haddii weli dalkan uu kaaga jira la hijaaco dalkan waa dal wanaagsan waa dal meel fiican ku yaalla oo ilaahay wax walba la siiyey haddii aanan nabad la helin nolol la heli maayo furaha noloshu waa nabadda weyn annaguna waxaan ka shaqaynaynaa nabaddaan ka shaqaynaynaa nabaddana waxa ugu horreeya ka shaqaynaya ciidamada qalabka sida haddii iyagu naftooda idin hureen idinkuna waxaan rabaa jeefkiina inaad furtaan iyo qalbigiinaba ugu dambeyn waxaan rabaa kitaabkii awan odayaal waxay siin kitaabkan oo hadiyad ah ammaanadan idin dhibin kitaabkan ku dara waa kitaab jaamaca weeye dad islaana nahay ammaanada aad noo dhibtaan waa ilaahay hortiisa inaan idin ilaalinayno aanan gaarsiinayno ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen wanaagsan